runtii munaasabad qiimo badan oo horay nooceeda intii aan jooga Puntland uga dhicin oo si gaara loogu gartay in ciidamada gaar ahaan ciidamada ka howlgalay gobolka Mudug lagu soo sharfo oo lagu dhiirigeliyo oo lagu qiro dadaalkii mucjisada ay qabteen in maanta halka loogu mahadceliyo waxaan intii halka ka hadashay iyo fanaaniintii suugaanta ku cabirtay uga mahadcelinayaa sida ay u soo dhaweeyeen dadkii howlgalkaas ee runtii baaxadda weyn lahaa ka qayb galay waxaan rabaa halka inaan ka qiro anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland inaan raalli ka noqonnay shaqadii ay qabteen oo aan kala harka lahayn waxa ugu weyn oo runtii aniga soo jiitay waxa weeye wada shaqaynta ka dhexdhacday laamaha dowladda qaybahooda kala duwan heer gobol heer degmo iyo ciidamada amniga qaybahooda kala duwan iyo shacabka gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo oo goostay inay dulinimada iska qaadaan runtii wuxuu ahaa isku day dad badan ay u arkayeen inuu dhicisoobayo ee suuragal ahayd laakiin dadkii hawshaas loo igmaday ay dadaalka bixiyey nafurnimada ah waxaa ilaahay mahadiis ah inuu ilaahay ku garab galay niyad wanaaggii iyo dadaalkii ay sameeyeen oo miraheedii dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay qirayaan gaar ahaanna dadka magaalada Gaalkacyo ay ku nool ay qirayaan iyo guud ahaan Puntland dabcan mashruucan qayb ka mid ah Puntland buu ka socday qaybna magaalooyin bay gaar u hayaan dib u habaynta ciidanka iyo tayeynta dowladnimada Puntland oo dhan baa wadaagtay laakiin la dagaalanka argagixisada labada daraf ee Puntland buu xoogoodu ahaa oo ah gobolka Mudug iyo gobolka Bari gobolka la oran jiray oo dhici karto inuu qaybo kale yahay iyo inta sanaad kaga beegan oo ah buuraleyda ku teersan ee magaalada Boosaaso khaasatan magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo waxa haysta culays aad u fara badan oo markii dambe u diiday dadku inay si dabiici u noolaadaan waxaa yaab noqotay in dadkii magaalada Gaalkacyo deganaa oo hantida ku lahaa oo guryaha ku lahaa inay guryahooda intay xirxiraan inay magaalooyin kale u guureen maanta waxaa warbixin lagu siiyey in guryihii kiradoodu qaaliyooday in dhulkii uu kacay in noloshii dadka ay rajo soo gashay waxaan rabaa hortiina inaan uga mahadceliyo tiimkii arrintaas suuro geliyey oo runtii inna halka laga xuso inna loo xusi doono hoggaanka gobolka oo sanyaro ah waxaa ugu horreeyey oo dagaalka soo bilaabay iyo hawshan allah u naxariistay walaalkiis gudoomiye Axmed wuxuu in badan ku celceliyaa oo meediyaha aad aragtaan mowqifka uu ka taagnaa iyo go'aankaas dowladdu u qaadatay safarkii ugu horreeyay aan halka nimid ayaan gudoomiye Axmed allah u naxariistay magacaabay iyo ku-xigeenadiisa xilligaas annagoo u arkaynay mishinkii ugu horreeyay oo ahaa inaan tijaabinno habka dowladdu u shaqaynaysay inaan wax ka bedelno xilligaas awood dowladeed oo gobolkan ka maqnaa ma jirin waxaa ku sugnaa wax ku dhow 2,000 oo ciidana waxaa ku sugnaa shaqaalaha dowladda oo dhan wasaarad aanan ku lahayn shaqaale ma jirin waxaa shaqaynaya gobolkii waxaa shaqaynaya degmadii waxaa shaqaynaya 18 isduwe waxaa shaqaynaya bulshadii oo dhan haddana amni ma jirin
adeeg dowladeedna ma jirin maxkamadihii baa joogay xabsiyadii baa ku yaallay habac iyo kala shaki ayaa runtii hareerayay gobolkan magaaladan waa magaalada labaad ee ganacsiga ee Puntland waa magaalo dhaqaale haddana hay-adihii dowladdu waxay la shaqayn waayeen dhaqaale xun waxaa isu kaay qaban weyday dhaqaalaha faraha badan ee gobolka ku baxaya iyo adeegii dowladda ciddii loo agmado oo qabanayn waxaa noo soo baxday inuu dadkii joogo diyaarna yahay laakiin habac iyo habiso kaleeta ay ku timid si arrintaa aan uga gudubno waxaan abbaarnay inaan dib u habayn ku samayno hoggaanka iyo maamulka markaa jiray sidoo kalena ciidamada aan dib u habayn ku samayno waxaan uga mahad celinayaa waxgaradkii xilliyadaas aan la kulannay ugu horreeyaan isimada gobolka oo islaam bashiir u horreeyey cuqaasha iyo nabadoonnada gabdhaha iyo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada oon halkan aan kula shiray qayb intii joogtay way xasuusan yihiin baan filayaa waxaan la shiray haweenka waxaan la shirnay dhallinyarada waxaan la shirnay odayaasha waxaan la shirnay cid kasta oo mudug aan ku tuhmaynay inay talada qayb ka qaadan karto waxaa ilaahay mahaddiisa inay nala qaateen qorshahaas aan ku talagalnay in dib u habayn lagu sameeyo mudug amnigeeda maxaa yeelay aasaaska waa amniga mashruuca Puntland gaarka u ahaa waxa uu heliyey mashruuca galmudug iyo Puntland in la soo celiyo xiriirkoodii wada noolaanshahoodii iyo wanaaggii ka dhexeeyey si ay meesha uga baxdo in dhagarqabayaasha iyo sharwadayaasha ay ku dhex dhuumaalaystaan magaaladan labada maamul ka kala taliso waxaan uga mahad celinayaa kulankii ugu horreeyey madaxweyne xaaf ayaan halka ku yeelannay kulanmadii dambena madaxweyne qoorqoor oo labaduba ay ka go'naatay in xaaladdii lagu jiray laga baxo iyo runtii waxaan si gaara u xusaayaa jenaraal qaybdiid iyo jenaraal gorod oo iyaguna kaalin gaar ah ka qaatay taabagelinta in dadkan la dhex dhigo nabad iyo wada noolaansho waxaan ku faraxsanahay maanta inay magaalada gaalkacyo ay mid tahay in saacaddii midnight-ka annagu ku dhow aan halka wada fadhinno oon ognahay qof walba inuu u hoyan doono meel durugsan oo magaalada ah oo wax cabsiya aysan dadka ku jirin runtii intii dhimatayna waxaan ilaahay uga baryanaa ilaahay inu naxariisto inta u taagan inta halka laga akhriyey oo la xusay maaha inta shaqada qabatay laakiin haddii shaqo la qabto dabcan mid guudna waa wada leedihiin dad gaar ah oo runtii shaqada ka soo dhex baxayna waa ay jiraan dabeecadda shaqada ayaa sida ah waxaan rajaynaynaa intii dallacsiinta mutaysatana in ay wixii ay ku mutaysteen ay sii hayn doonaan inta kalena waxaan rajaynaynaa inay mudan yihiin runtii ciidamada gobolka mudug jooga qaybihiisa kala duwan waxaan si gaara runtii xaqiiqo u ah howlgalka ciidamada dowladdu markii aan nimid waa u kala dhantaanaa hay-ad wada shaqayn leh ma lahay wuxuu ilaahay qadaray inay meel wada degaan oo wada shaqeeyaan runtii dadaalkaas la bixiyey waa dadaal mar walba u baahan in la sii joogtayo taladii caasho geelle ee ahayd wax waa la qaban karaa howl waa la isku dubaridi karaa laakiin in la joogteeyo shaqo sahlan maaha waxaan ka rajaynayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo dhammaan hay-adaha amniga shaqooyinkii ay dadka iyo dalka u hayeen inay sidii iyo si ka duwan ay u labalaabaan oo u joogteeyaan dad yaroo kooban oo marka bulshada soomaaliyeed loo fiiriyo aan waxba ahayn inay sharafta iyo karaamada dadka soomaaliyeed ay meel uga dhacaan annagay waxay nagu tahay ceeb iyo dembi inaan ka qabanno bulshadeenna waa muhim waxaan rajaynayaa hay-adaha u xilsaaran amniga iyo garsoorka oo runtii kaalin muhiima qaatay iyo meediyaha waxaan rabaa si gaara inaan halka u xuso wariye timire oo runtii
dhiiranaan iyo in uu dhibaatooyinka jira bulshada u soo bandhigo qayb ka ahayd shaqada qabsoontay oo aan ka xumahay inuu maanta halka joogin laakiin ka mid noqon doona dadka la abaal marin doona shahaadooyinka gudoomi doona. waxaan u baahannahay joogtaynta shaqada inaan ku dadaalno. waxaan u baahannahay wada shaqaynta oo saldhig ah oo laamaha dowladda iyo bulshadu inay wada shaqeeyaan in la adkeeyo. waxaan u baahannahay inaan sida mas-uuliyadda loo kala hayo laysu ixtiraamo gacanna laysugu siiyo. waxaa dhacday mararka qaarkood qofka mas-uulka oo firfircoon oo dadaalaya mas-uuliyadda haysa in dadka uu mas-uulka u yahay uu kala kulmo dhaleecayn iyo lugjiid. waxaan iniga mahad celinayaa reer mudug inaad dhaqankaas ka gudubteen, dad midaysan oo isku duuban inaad tihiin. waxaan rabaa inaan si gaara halka uga mahadnaqo jenaraal bashiir oo ahaa taliyihii booliiska ee soomaaliya hore oo khibradda iyo istaraatiijiyada shaqadan runtii la taliyayga ahaa oo wax badan talooyinka aan qaatay go-aanada aan qaatay qayb ka ahaa. waxaan kaloo rabaa inaan halka ka xuso korneyl cumar bile oo runtii taladiisa ku yimid aad baa u mahadsantaha cumar. waa sarkaal dembi baare ka ahaa magaaladan gaalkacyo sida ii sheegay 71 ama 72 maantana mar labaad aan ku codsanay inuu intuu yimaado shaqada u qabto. runtii khibraddiisa waxay saldhig u noqotay guulaha la gaaray sida hore loo sheegay. waxaan rajaynayaa korneyl muumin oo runtii ahaa sarkaalka sida geesinimada iyo xigmadda la ku shaqeeyey iyo birmadkii madaxtooyada ee u horreeyay halka yimid oo uu qoolaali madaxda ka ahaa iyo dhallinyaradii la shaqaynaysay in badan waa ku dhinteen in way ku dhaawacmeen in runtii waxaan qirayaa culayskii faraha badnaa oo soo fuulay inuu burbur nafsi u geystay. waxaan u baahannahay marka maanta waxyaabaha mucjisada ahayd waxaa ka mid ah iyagoon bil joogin baa nabaddii la dareemay. waa 100 wiil bay ahaayeen 120 wiil iyadoo ay mudug ku sugnaayeen 2,000 oo ciidan. waxyaabaha aan aada ula yaabay bay ka mid ahayd. tijaabaan isaga soo dirnay laakiin inay sidaa wax isu beddelayaan runtii annaga ruuxaddeenna ma garabsanayn. waxaan rajaynayaa nabaddaas iyo wanaaggaas aa haysataan inaad adkaysaan. waxaan idiin rajaynayaa xiriirka iyo wada shaqaynta aad galmudug la leedihiin inaad adkaysaan. cadowga isku midka ah ee al-shabaab ah meel uga soo wada jeesataan. horumarka gobolka ka socda iyo kan gobollada kale ee puntland ka socda aada idinka u diyaar garowdaan inaad qaybtiina qaadataan. wada shaqaynta bulshada qaybaheeda kala duwan oo u horeeyaan dhaqanka odayada isimada nabadoonnada qaybaha kala duwan ee ururada bulshada dhallinyarada iyo haweenka waa lafdhabarta dadka la rabo in loo shaqeeyo taladoodana wax lagu dhiso. waxaan ka rajaynayaa maamulka gobolka iyo degmada iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan gobolka mudug inay si dhow la shaqeeyaan. waxaan uga mahad celinayaa guddigii dib u habeynta ciidanka oo wasiir xasan shire uu madaxda u ahaa oo ku guulaystay inay puntland maanta leedahay ciidan la isku hadlayn karo. ciidankaasoo kalsoonidoodii ay soo noqotay, tababar helay, mushahar joogto ah helay, sharaf iyo karaamo helay. waxaan ku farxaa marka aan arko saraakiil si fiican u labisan. kulankii ugu horreysay oo saraakiisha aan la yeeshay waxaa ii yimid rag hadda aanan tilmaami karin oo sifeyn karin. 2 saaroo kala duwan wata, kaba saandala wata, koofiyad aan lahayn,
garaadana warkooda iska daa ku dhahay korneyl baana maantana waxaan u malaynayaa haybadda inaga muuqatay ninkaa markhaantiga ah marka runtii ciidanku kama soo haro tababarka iyo kala dambeynta iyo disiblinka ciidan aanan isxukumin oo disciblin oo garaadahan la bixinayo qiimo ma yeelana haddaa qofka lagu qiimeyn marka waxaan u baahannahay inaan dowladnimadii dib u yagleelno dowladnimaduna ogaada soomaaliya marxalad adag bay soo martay haddana marxalad adag oo siyaasadeed bay ku jirtaa horeyna inta hadda la hayo puntland baa gundhig u ahayd inta hadda la filayo maqanna reer puntland oo idinkaan iliga jeedaa haddaydan idinku tiinna daryeelin tukal kuma dari kartaan marka waxaan u baahannahay inaan dowladnimada puntlandna aan xoojinno baadigoobka soomaalida siduu halkudhigga iyo aasaaskii puntland uu ahaana aan wax ka doonno isku duubnideena iyo midnimadeena aan ilaalinno cidda markaas naga ra'yi diban siday caasho sheegtay la baadigoobo la wada hadlo puntland waxay bisha soo socota geli doontaa 3 degmo ugu horreeyay oo tijaabada ah ururada siyaasadda soomaalidu saad ogtihiin wada siyaasiyiin baa la noqday waxaan rabaa inaan ciidamada u sheego ciidamadu siyaasadda isaga baxa ha ku milmina waqti ha ku dhuminina maxaa yeelay shaqadiina inaga dayacaysaa dadweynaha iyo bulshada qaybahooda kala duwanna waxaan ka rajaynayaa inay shaqadooda qabsadaan ururada siyaasadduna waxaa la rabaa inay bulshada ku hoggaamiyaan siyaasad caafimaad qabta oo furan runtii markaan taa u gudubno wax badan oo kuturkuteena waa ay dhammaan doonaan ninkii wax isku haya oo rabo bulshada inuu wax usoo bandhigo waxaa la rabaa inuu fagaarayaasha yimaado oo uu sharxo waxa uu rabo dadka inuu u qabto tartan caafimaad qabaa la geli oo aan reero ku dhisnayn magaaladan markaan imaanayay 2 shay oo yaab leh baa mudug kala kulmay horta reer kasta reer lama dhigi kara jifi kasta waxay rabtay xero gaara oo ay ciidan ku xaraysato ururada markaa weydiiyey reer walba ururada magacyar qabiil bay lahaayeen waxaa kaloo yaab igu noqotay maraan tuur ku maraayay reer kasta intay imaan waxay lahaan iskuul gaara inaan dhiganaan rabna aan helno marka bulsho iyadii dhanba la kala googoynayo oo dowladnimo aan loo wadin ayaa horta halkaa ka soo baxday marka arrintaas waa arrin u baahan hadda waaba isbeddesho waa laga hortegay waxaan u baahannahay bulsho mid ah oo hal ciidan leh oo hal nidaam iskuul leh oo hal caafimaad leh oo hal maamul leh oo maamulka gobolka marka laga hadlaayo maamulkii waa daadejinay awoodihii aan dowladda dhexe lahayd waa siinay waxaa hadda runtii dib u dhac nooga dhacay in guriga dhismihiisu hadda dhowaan dhammaan doono aan ugu talagalnay xarunta dowladda puntland ee gobolka mudug ay ku kulmaan dhammaan wasaaradaha dowladda puntland ee adeega bixiya inay halka isugu yimaadaan oo guddoomiyaha gobolku uu noqdo guddoomiyaha guddiga amniga iyo guddoomiyaha guddiga horumarinta labadii dhinacba uu isaga functionality-ga dowladda sidii dowladnimadeena u dhisnayd oo dastuurkeena iyo nidaamkan ku dhisnaa inay u shaqayso runtii shaqada la qabtay inaan xafladdan qabanno waa mutaysateen idinkaana keensaday maxaa yeelay anigu maalinta halkaa aan joogana waa lahaayo reer mudug haddii ay is-aaminaan oo u soo jeestaan karti ay dadkooda iyo dalkooda ku dhisaan waa leeyihin waxa ugu weynaa oon la dagaalanay markaan nimid waxay ahayd kala shaki baa jiray iyo qofba qofka garabkiisa jooga uu ka shakinayo uu ka baqaayo waxaasna ninkii abwaankaa waa halka sheegay waa 3 calaamadood ay shaydaanku uga mid yihiin nimankaasaa waxay abuureen cabsi iyo fiir aan weel u ka yimin aan la garanin oo dadkii ka qaaday runtii kalsoonidii sidaa hadda guddoomiyuhu sheegay safarkii ugu horreeyey aan imid magaalada bannaankeeda xaflad lagu qabtay garacad alaabteeda lagu waday
waxa aan isku kay qaban weynay markaan yaraa waxaan maqli jiray reer mudug waa reer libaxtisa ka taabtay iyo waa baqeen anigu waa isu kay geli weyd runtii marka ma aysan baqina shaydaan baa u waxyooday balaayaa dhex gashay laakiin markay dhiiradeen runtii adduunkii oo dhan bay ka yaabayeen sida ay kartida leh oo ay shabakadihii u soo qabteen haddaana khaldanayn korneel cumarna wuu ii sheegi doonaa khabiir dambi baarisa shabakooyinkaas mid la mida oo soomaaliya laga qabtay ma jirtaan filaya karti bay ku timid iyo dadaal iyo in dadkii reer mudugaha kuwii gudaha joogay iyo sida la sheegay qurba joogtiiba ay mid ka noqdeen inuu mashruucaas la juxo runtii mashruucaas wuxuu soomaaliya u noqday rajuu u soo celiyey waxaa muuqanaysa dadka soomaaliyeed inay ku filan yihiin taladooda waxaa muuqanaysa dadka soomaaliyeed inaysan ahayn hadda dowladaha meelaha kale waxa lagu yidhahda soomaalidu waa wada argagixiso ilaa haddaad argagixisada aadan iska qaban adna argagixisaa noqonaysaa raallina ka tahamoodaysaa marka inay soomaalidu argagixiso ahayn argagixisada ay necab tahay la dagaalamayso dowladnimada iyo dadnimada ay rabto deganaanshaha ay rabto walaalnimada ay rabto runtii tusaale waxaa u ah magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug waxaan runtii rabaa inaan halka uga mahadnaqo saraakiisha hoggaamisa ciidanka isku dhafka ahaa ee labada maamul ka kala tirsanaa ee ku guulaystay in meesha labada maamul wixii ka dhacba ay gacanta ku qabtaan waxaan kaloo u mahad celinayaa guddigii odayaasha ahaa ee ka soo shaqeeyey inay labada dhinac isku dhafkooda qayb ka qaataan waxaan rabaa cid kastoo aan ilaaway halka mudnayd in la xuso in ay xusan tahay dadaalka ay ka qaadateen ururada dhallinyarada khaasatan iyo gabdhaha runtii dadkii ugu dhiiranaa bay ahaayeen markii halka aan la kulannay oo diyaarka u ahaa in dalkan wixii uu ku jira ka baxo waxaan aada ugu qushuucay oo ku farxay maalin markaan garoonka fulaynay maalintaas markaan mudug imid muddana igu dambeysay waxaan isiri malaha gaalkacyo maadan imaan dadku suu u ekaa foolxumadiisa maalin dhaweyd waa yaaba waxaan ku irin warba kuwii dibadda ka yimid baa soo carar magaaladeeda waa isbedeshay maxaa yeelay qofka hadduu baqsan yahay wejigiisu xataa wax foolxun buu ekaanaya hadduu faraxsan yahayna isagoo dhan wuxuu ekaanayaa qof maaragtay nuuraya marka runtii nicmadaas adkayn bay u baahan tahay waxay u baahan tahay jiilka in lagu barbaariyo saraakiisha yareeray soo koraysa dadka shaqada qabtay hadda weligood joogi maayaan weliba aan kaftannahay sidii dhaqanka aan u imid uu ahaan jiray magaalo walba dadkeeda loo dayn jiray soo maha marka hadda muumin ma ergu inugu yahay talow muumin iyo cumar bile ogaada labada waa nili keenay iyo qoolaali marka ergami waa ku filantihin baa magaalada shaqadiina ya marka runtii siyaasadda dowladda waxay ahayd in saraakiisha la isku bedelo nin reer gaalkacyooda gobolka karkaar wuxuu ka yahay guddoomiyaha maxaa la dhaha taliyaha qaybta nin reer gaalkacyooda wuxuu taliyaha qaybta sanaag ka yahay oo baran fadhiya soo saas ma u socotaa taliyaha qaybta casayr wuxuu ahaa gobolka karkaar sidaasaa la isugu bedelay waana siyaasadda lagu najaxay oo aan rajaynayno ciidamadii waa la isku dhafay ciidan ka yimid sanaag baa waxay ka howlgaleen galdogob soo saas ma ahayn kuwo galdogob ka tegey iyo mudug baa waxay tageen gardafuur oo cirifta korokoray siyaasaddaas runtii guddigii isku dhafkahaa sameeyey iyo ciidamadii saraakiishii waan uga mahad celinayaa waxayna soo celisay sharafteenni iyo haybaddeenni iyo dowladnimadeennii waxaan runtii ku dadaalnay oo weliba dhib badan naga mutaystay lacagta cashuurtani laga qaado inaan iniigu adeegno nidhaahno mushaharooyinkaan ku bixinaynaa dhib badanaa naga mutaystay cay badan iyo canjarafo badan oo ah haddaadan wax bixin suuqaa dhiili gelaya
waxaan idhi caaya hadda wax naga tarimaysa wixii nacaaya iska kaaya caaya laakiin runtii maanta intii shalayna diidanayd baa dadka ugu horreeya hadda nagu ammaano ah inaan shaqadaas loo baahna fadlan qofka waxba geen mayso maxaa yeele nin baqaayo xoogaa aasiisa oo kii shaqada qaban lahaana ciidamada waxa ugu weyn oo 2,000 halka aan sheegayno mushaharooyinka waa la bixiyaa dowladda u qornaayeen laakiin mushahar ma heli jirin waxyaabaha niyadda ka jabiya ka mid ah marka qofka hadduusan mushahar qaadan magacii waa isaga qoran yahay reerkiisi miyuu ama magaalo kale bariiska la doontay waxaa hadda isbeddelka dhacay waxa weeye in mushaharooyinkii la joogteeyey oo la kordhiyey waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noo sii siyaadiyo amniga iyo istiqraarkaan haysanno dadkeennu ay gartaan inay cashuurta dowladda bixiyaan dowladdeennu ay garato waajibaadka iyo xuquuqda lagu leeyahay inay bixiso xisaabtanku uu kordho dowladduna iyadu xisaabtanto bulshaduna ay dowladda la xisaabtanto dowladduna ay bulshada la xisaabtanto si qurux iyo kala dambayn iyo wanaag aan u dhaxalno aan ummadda Soomaaliyeed berri ka maalin aan iraahno 22 sano jirnay baa inta lagu celceliyay 23 waxaan u baahannahay wax noo laga daydo oo lagu dhiirado inaan anaguna laga helo kulankan maanta waxa iska lahaa ciidamada fariimaha kaleeto oo dadka kale ku socday waxay ahaayeen kor socod ciidankiina waad mahadsantihiin waa inay mahad celinayna mar labaad iyo mar saddexaad idinka iyo intii la howlgashay oo dhan haddii aan lahayd meedihiina la howlgalay haddii aan lahayd dabcan garsoorka aan hadda hayno oon ka hadlayno ma aha garsoorkii kaleetee garsoorka ciidanku ka tirsan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sidee ahayd maxkamaddii la shaqaynaysay garsoorka kale iyo hay-adaha kale dowladda iyo shaqada ay qabteen iyada waa shaqo socota waxa ugu daran oo markaan mudug imaado aad lay weydiin jiray waxay ahayd mashruuca kabay oo waddada isku xirta jalam iyo xarfo ah waxaan inagu bishaareynayaa isbuuca soo socday la dhagax dhigi doono waddadii dadaal dheer iyo waqti badan oo la geliyey in lagu guulaystay in contractigii la bixiyo waxyaabihii u baahnaayo dhan la soo dhammaystiro waxaan rajaynaynaa iyadana waddadaas oo runtii culays badan ku haysay isku socodka gaadiidka inay gabagaboobayso haddii ilaahay ma dhowaan waxaa kaloo iyadana gacanta lagu hayaa waddada Boosaaso iyo Garowe dhexdooda iyadana insha Allah dayactirkeedii sida aad maqashoontiin baa socon doona haddaan amniga ka soo jeesano oo joogtayno waxa ku xigi waa kaabayaasha waxaan berri ilaahay idinka istagi doonaa dekedda Garacad oo iyadana aan rajaynayno in ay goordhow shaqo gasho waxaa laga shaqaysiiyey kastamyadii Turdibi Dar es Salaam kastamka Turdibi way hoos tagtaa oo waa kastamka magaciisa guud waa kastamka Turdibi oo isagana farac ku leh qaybta Dar es Salaam waxaan rajaynaynaa iyadana ilaahay idinkiis waxaa mar dhow gacanta la saari doonaa waddada isku xigta Garacad iyo Turdibi oo assessmentii ugu horeeyay oo si casri ah loo sameyn doono goordhow bilaaban doono goorta la dhisi doono ilaahay yaqaan laakiin marka hore bal in la helo designkii waddada iyo sidii u socon lahayd waxaad ogaataan argagixisadu waxay u socdaan ma aha kaliya inay dadka dildilaan waxay u socdaan inay dhaqaalihiina boobaan waxay rabaan inay dekedda Garacad ay qabsadaan waad ogtihiin iyadoo jirinoo hadal ah bay soo weerareen waxaa loo baahayaa marka shacab iyo doonaya khilaafaadka soo dhexgala hay-adaha dowladda inuu dowladnimada ka caaganaado waa sax 30 sano burbura oo kala dambayntu ay adag tahay waa la soo maray dadku nin walba wuxuu rabaa in ra'yigiisa uu meel maro kan madaxda laga dhigo mararka qaarkood in amarka laga diido isagaa sababay maxaa yeelay madax baa tahay markii la darajo loo xiro wuxuu rabaa inuu amarku taaglayn sameeyo marka laga yeeli maayo taa naftigeeda ku xisaabtantaa saraakiishu waxaa la rabaa inay ciidamada ay xukumaan si fiican ula dhaqmaan oo waxa ay u dirayaan ay noqoto wax ay qaban karaan oo waxa ay ka cudur daartaan ay la xaliyaan oo ay noqdaan hoggaanku waa aabe inuu qof walba meesha mas'uul ka yahay inuu dadka xiriiriyo dadka wada ma wada fiicna laakiin waa dadkeennii waxay u baahan yihiin la isku wado
ودulqaadna la muujiyo arrimahaasna waa muhiim hadalku inuu ila dheeraado ma rabo maxaa yeelay runtii aad baan uga caadifaysnahay ciidanka shaqada ay qabteen iyo inay dadkii runtii mar allaaliya markaan xataa meel kala tago dadka reer muduga ah kuwa gudaha jooga iska dhaaf kuwa dibadda jooga ayaa ka mahadnaqaya shaqada la qabtay safarkii hadda ugu dambeeyay ka horeeyay dadka reer muduga ee magaalada Nairobi degan xaflad bay qabteen inooga mahad celinayaan shaqada qabtay dabcan magaciina lagu shaqada qabateen baan lagu soo dhaweynaya marka annaga inay mahadnaqo weeye waxaan rajaynayaa dhammaan maamulada qaybahooda kala duwan mas'uuliyiinta halka fadhiya waqtigu waan ugu dheeraaday aad baad u mahadsan